wasiirka ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa baydhabo kaga qayb galay wacyigelin ku saabsan ka hortagista musiibooyinka dabiiciga faafaynta warkaasi Ibraahim Macallim ayaa ka soo daray baydhabo seminaarkan lagu baranayay xaaladda gurmudka degdega ay leedahay ayaa waxaa soo qabanqaabiyay mashruuca Somrej iyadoo kaashanaysa shirkadooyinka daneeya ka hortagga dhibaatooyinka ayaa waxa uu ka dhacay hotel Horyaal ee ku yaala magaalada Baydhabo waxaana ka soo qayb galay qaar ka tirsan wasiirada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dhalinyaro ka kala socota wasaaradaha kala duwan ee maamulka koonfur galbeed waxaana seminaarkan furay qaar ka tirsan wasiirada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayagoo goobtaasi ka hadlay waxayna sheegeen wax walba horumarka koonfur galbeed inay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan early warning early action dashboardka oo ku saleysan si community based early warning wuxuu kaga duwan yahay waan noo sharxay macluumaad oo waxaan helaynaa hadii oo barnaamijkan la taabageliyo macluumaad oo si digital ah yaa loo helaa oo waqti isla waqtiga real time waxay dhahan la helaya online and offline ku shaqeynaya sida la sheegayna muhiimadda ay leedahay waxa waaye marka xog haysid ayaa maxaa la lahaa xog tala hela sida loo sheegay waxaana idin tusaysaa ka soo qaybgalkeena ilaa 4 wasaarado wadamada naga tareer ka dhacda laakiin anaga dadaalkii waxaan laga rabaa diyaar garowga barnaamijkan maanta baaladka isla daa furaayo oo Somrej iyo Saamid iska kaashadeena hornaantu wuxuu noqon doonaa fursad inaan helno xogta inaan helno xogtaas aan helnana early warning waa in marka hore digniinta hore ay heshid haddana maxay ahayd ka falcelintii hore wixii markaad warbixinta haysatid oo si waqti fiican oo macquul ah ku heshid markaas haddana waxaad samayn kartaa inaad ka falceliso wixii laga sameeyay aad u diyaar garoodid marka anaga nasiib ay noo tahay Somrej iyo waa kala shaqeynaynaa waqtiga baaladkii mashruuca ay noo wadaan anaga wasaaradda militariga iyo wasaaradaha kale oo ku shaqada maxaa yeelay waxaa la rabaa warbixinta caafimaadka warbixintii maxay aad noqoto cuntada biyaha iyo ereyaashaasna u baahanna hal meel ay isugu imaanayaan barnaamijkan wuxuu aad runtii muhiimad gaar u leeyahay wax oo bulshada ku saleysan community base oo shacabka dadka deegaanka tuulooyinka joogay aan warbixinada aan keeni karno marka waqti badan aan qaato ma rabo annaga dawlad ahaan waa ku faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa Somrej saaxiibadan waaye waana ka wada hadlaynaa sidii markaas waxaan loo taabageli lahay waan u baahannahay skillkiina u baahannahay macnaheedu ma aha marka hal mar noo sameyseen daatada wixii qaata idinka la taga taas xoogay waxa ka wanaagsan in idinka way arrimadiina seminaarkan oo ahaa mid ay soo qabanqaabisay shirkadda Somrej ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saarayay xaaladda gurmudka ay u leedahay bulshada koonfur galbeed Ibraahim Macallim raadiyaha TV-ga Galmudug magaalada Baydhabo Janaa'i